iyadoo maalmihii dambe si weyn looga soo dayrinayay xaaladda cudurka shuban biyoodka ee ka jirta degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug waxay degmadaasi gaarsiiyeen dhakhaatiir iyo daawo ka timid guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. Daawada ayaa la geeyay isbitaalka guud ee degmada Balanbale iyadoo sidoo kale dhakhaatiirtu ay ka howlgaleen isbitaalkaasi waxaana dhakhaatiirtu ay gacan siinayeen dadka bukaanka ah ee iyaga la keenayay isbitaalka degmada Balanbale. Dr. Cabdiladiif Cabdullaahi Warsame wasiirka ganacsiga Galmudug oo isagoo xubin ka guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay deeqda ka timid guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. ilaa 4 meelood bay ahayd waxaan ugu talagalnay halkan in la gaarsiiyo waa godoon waa gaarsiinay cabudwaq waa gaarsiinay ayadana saan ku wareejinay godoon shalan ku wareejinay xiraale ayadana maanta ku soo wareejinay qaybtii ugu dambeysay oo hadeertaan Balanbale aan hadaan wareejinayna marka taas waa intaas way daawada marka cid ay naga soo gaarteen waxa guddiga gurmadka abaaraha waana daawo dad Soomaaliya oo maaragtay sheeg muxsiniin oo gudaha iyo dibadda jooga shilimaan iska aruuray qof dollar bixiya qof laba bixiya kadib markay arkeen dhibaatooyin ka jira dalka Soomaaliyeed oo dhan marka intaas ay ahayd ujeedka ugu weyn oo maanta maaragtay isha halkan aanu nimid. Gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Hayle ayaa dhankiisa ka mahadceliyay deeqda ka soo gaadhay guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. salaan kadib waxaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa degmada Balanbale oo aad timaadeen wixii aad wadeen oo daawada ah oo nagu soo gurmateenna waa idin kala wareegaynaa waa idin ka gudoomaynaa runtii isbitaalkan degmada Balanbale waa isbitaal cusub waxa weeye oo hadda dhow xariga laga jaray wasiirka xariga ka jaray baa hadda jooga caafimaad wasiir dawladda caafimaadka Galmudug waxa weeye meeshaan inta isbitaalka la furay waxa ka dhacay xanuun aad u fara badan baa degmadan ka dhacay ilaahay ma hadda xanuunkii hadda waa la soo kabanayaa sidoo hore ma ahan welina waa socdaa kiiskiisii waana uga mahadnaqaynaa dawladda federaalka iyo guddiga abaaraha ee heer federaal daawada ay noo soo dhiibeen iyo gurmadka ay noo sameeyeen waa uga mahadnaqaynaa waana ka gudoonay. dhinaca kale odayaashii waxgaradka degmada Balanbale ayaa si weyn u soo dhaweeyay deeqda daawada ee uga timid guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. guddigii heer qaran ee dawladda dhexe Soomaaliya ilaa intaas dadaalka weyn ka soo dhex sameeyay meeshaas masaafada aadka u dheerana noo soo mariyay daawadaas gurmadka si khaas ah ayaan wasiir Cabdiladiif ayaan ugu mahadcelinaynaa si guudna waxaan ugu mahadcelinaynaa guddiga abaaraha heer federaal iyo cid kasta oo Soomaali ah oo maanta kaalmo ka geysatay ummadda Soomaaliyeed ee tabaalaysan ee abaarta iyo shuban biyoodka intaba la tabaalaysan. Sharmarke Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Honkable.